بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا مركلة إيا برنامجكني توسكا ها برنامجكن waxaynu kaga hadli doonaa sida aad la socotaan baatan iyo intii uu dagaaladu ka bilowdeen waddanka Ethiopia gaar ahaan gobolka waqooyi ee Tigreega halkaasina lagula dagaalamay aan idhaahdee kooxdii TPLF ee muddada ka soo arriminaysay isla markaasina ay jilibka isu dhigeen ciidamada militariga Ethiopia iyo weliba ciidamada militariga ah ee waddanka Eritrea isla markaasina inta badan magaalooyinkii waaweynaa ee muhiimka ah laga saaray kooxdii TPLF waxaa soo yeedhayay dhawaaqyo kala duwan oo ku saabsan in gobolkaasi Tigreega laga geystay xasuuq bahalnimo ah kaas oo bini'aadanimada ka dhana xasuuqaasi waxaa loo geystay sida la sheegayay shacabka Tigreega isla markaasi aan ahayn siyaasiyiinta laakiin shacabkii caadiga ahaa ee gobolkaasi Tigreega ayaa loo geystay xasuuqyo kala duwan oo si wadar ah iyo si waaxidaba loo leynayay isla markaasina intii soo hadhayna waxa la soo warinayay in ay u baaba'ayaan gaajo iyo maaragtay dhibaato xoogan oo dhanka cunno yaraanta waxaa loo diiday hay'adaha gargaarku inay halkaasi gaadhaan isla markaasina waxaa dhan walba laga godoomiyey gobolkaasi iyo shacabkii Tigreega kumanaan ka tirsan shacabka Tigreega oo iyagu jaanis u helay inay ka gaxaan gobolkaasi waxa ay gaadheen gudaha waddanka Suudaan halkaasi oo ay ku yihiin barakacayaal isla markaasina ay kaga jiraan xeryo qaxooti ha yeeshee dadkii gudaha ku jiray dhibaato xoogan ayaa la warinayay in la gaadhsiiyey dhibaatadaasi haddaba yaa ka mas'uul ah hay'adaha u dooda xuquuqda aadanaha ee adduunka sida Amnesty International ayaa warar ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in xasuuqyadaasi ay geysteen ama uu geystay dalalkii ciidamadooda ay soo galeen gobolkaasi kuwa ka mid arrintaasi ayaynu eegi doonaa waxa ila jooga saaxiibkay Jaamac Xasan Cabdulle Jaamac waan ku soo dhaweynayaa bal hadda ka waran xiisadan aloosan ee Amnesty International ay kaga hadashay gobolkaasi Tigreega keligeed ma ah hay'ado waaweyn oo kala hadlay quwadihi adduunka iyaga laftoodu qaybo ka mid ah hadleen sida Mareykankii oo kale oo aynu arkayna Kenya in maanta la sheegayay madaxweynaheeda inuu xalay mise shalay uu khadka telefoonka kula hadlay arrimaha gobolkaasina laga sheekaystay bal arrimahaasi marka aynu soo duuduubno xagee wax maraya بسم الله الرحمن الرحيم وسلام يا جود هم بأمة الصومالية ميل كستي ويتشوجان با سلام الله عليكم بالله نور وصاحب أرتا سيدا شيكتي دي حالة دا إن مركا لافيريو إثيوبيا وحيابها مارت اللي قصوا الشيء يديجان كتكريجا ومد يعني الدولة إثيوبيا نفتر كذا بقى قرصنت هاي وجودي روان مال مكور أما تدوات كيهور هذا إن أي قدر تيمد كمدا وساردها دلكاس إثيوبيا جارحان وسارد عرورتا يهوانكا waxa ay soo xaqiijiyeen in dhibaato ba'an ay ka dhacday deegaanka Tigreega oo isugu jira dil kufsi iyo waliba dhibaatooyin kale marba marka ka dambeysana waxaad moodaa xaaladdu inay cirka isku sii shareerayso oo meelo maaragtayto aan horay looga maaragtay warqabin in maaragtay hadda xoga badan laga helayo waxaa jiray guddiyo ama hay'adaha gargaarka iyo guddiyo ka socda maaragtay adigu dhinaca saxaafadda oo aan sii badnayn in maaragtay dhowaan ay dowladda Itoobiya u ogolaatay meelo gaara oo ka mid ah deegaanka Tigreega inay tagaan meelihii ay tageen weeyaan horta waxa hadda laga qayliyayo oo ah boqolkiiba yacni 2 deegaanka Tigreega waa magaalooyinka Maqale iyo Aksum iyo Adigrat iyo wax la mida oo yacni wada xiriirisa ay qaadeen soona qaadeen weeyaan waxa hadda qayla dhaantu ay ka soo yeedhayso ee ma aha yacni deegaankii Tigreega oo dhan iyo magaalooyinkii oo inta la booqday oo guddiyo ay booqdeen ama dowladda Itoobiya ha ka socdaan ama meelo kale ha ka socdaan ama xuquuqul insaan ha ka socdaan ama saxaafadda ha ka socdaan ma aha yacni magaalooyinkii waaweynaa ee Tigreega iyo dhulkii Tigreega ee waa magaalooyin kooban oo 2 iyo 3 waxa warbixintu ay maaragtay hadda qayla dhaantu ay ka taagan tahay marka waxa la soo sheegayaa dhibaatooyin ba'an waxaan filayaa inagu warkan hadda la sheegayo haddii yacni dib loogu noqdo bishii maxaan ku dhahay November ba waxaan dhaceen October
dabayaaqadeedii ayaynu waxa hadda laga sheegaya magaalada Aksum aynu sheegnay oo ahayd yacni meel macbad ah oo dad tiro badan ay isugu tageen ama kaniisadba aan dhahane oo lagu dilay in ka badan yacni waa 1 day ama hal saacada gudaheed lagu dilay dad lagu sheegay 800 oo qof inta yacni markaasi la xaqiijiyay kaniisadiina la gubay bishii October baan sheegnay inagu oo halkaasi maaragtay aan warkeeda helay hadda baa marka lagu baraarugay oo ay saxaafadda caalamka iyo maxaan ku idhaahdaa to hay'adaha gargaarka iyo kuwa xuquuqul insaanka u dooda ee human rights iyo amnesty iyo ay ka hadlayaan marka dhibaatadani kolley dee baaxadda ay la eg tahay ilaa iyo hadda si rasmiya cid ogaan karta ma jirto laakiin waxaad moodaa xaaladdu hadda in ay gaadhay meel aad u durugsan waa mahadsantahay waayahay marka xaggee dhibaatooyinkan waan garanay dhibaatooyinkan la sheegayo magaalooyinkaasi gaarka ama waddadaasi gaarkee ayay ku xidhan tahay mise waa gobolka oo dhan wax ka jira de horta inagu meesha ma joogno xogta laga helayaana way yar tahay waxa inagu aan xilligii dagaalku uu socday ayay ahayd wixii aan ka warrami jirnay ee aan maaragtay to sida joogtada ah aan u soo qaadan jirnay xilligaana dad baa nala wadaagi jiray oo xogta maaragtay to aan ka heli jiray noocay doonaan ba har noqdaane oo weliba xoga xaqiiqo ah oo biyo kama dhibcaana ayay ahaayeen marka meelaha dhibaatada ugu badan ay ka dhacday يعني ما jirto cid ilaa iyo hadda tagi karta iyo cid tagtay midnaba waana inta badan maxaan ku idhaahdaa to dhinacan galbeedka Tigreega weeyaan meelaha mashaqada ugu badan ay ka dhaceen dhibaatada ugu badan ay ka dhacday haday noqon lahayd maxaan ku idhaahdaa to dhinacan Humayra ama Raaya meesha la yiraahdo iyo deegaamada ku xiriirsan ilaa iyo Shiraaro ilaa iyo dhulka maaragtay xuduudda saddexagalka ah ay wadaagaan Ethiopia iyo Sudan iyo Eritrea deegaamada ku gadaaman oo dhan yacni waa meelaha dhibaatada ugu badan ay ka dhaceen labadii maalmood ee ugu horeysay yacni ciidamada Eritreanku xataa inta ayna soo galin magaalada Humayra oo kale duqeyntii ay ka geysteen ayaa waxay tahay dadka ku dhintay aanay jirin cid ilaa iyo hadda si dhab ah u xaqiijin karta waxa ay yihiin ama tirada ay la eg yihiin marka meelaha dhibaatadu ka dhaceen waa meelo badan weeyaan laakiin hadda inagu ma dhihi karno waa meelaha meel dagaal ka dhacayna dad badan baa lagu dili askartu way gadoodsan tahay wax walba ay samaynayaan haddaanay jirin maxkamad ciidan oo la socota oo askartii kii wax geystaba markaba yacni dembigii uu geystay lagula xisaabtamayo haddii aanay jirin askartu waxay rabtay samaynayaan waxaa intaa dheer oo dhibaatada ugu badan yacni geysanayay oo iyagu ahaa kuwa maaragtay to dowladda Ethiopiana ay u fasaxday ama fasaxa ka haystay ama ahaaba xoog lama taabtaana maleeshiyaadka qowmiyadda Axmaarada dhibaatada ugu badan waxa geystay waa ciidamada Eritrea iyo ciidanka maxaan ku idhaahdaa to maleeshiyaadka qowmiyadda Axmaarada ama ha ahaadaan Liu Police ama ha ahaadaan maleeshiyaadka kale caadiga ah ee hubaysan magaca ciidanka Ethiopia wuu raacaya oo demeeshii Ethiopia iyada dawlad ka wax kasta oo dhacana iyada ayaa dhabarka loo saaraya laakiin dhibaatooyinka ugu badan waxa geystay waa ciidanka Eritrea iyo maleeshiyaadka qowmiyadda Axmaarada marka meelaha dhibaatadu ay ka dhacday iyo sida ay u kala baaxad badan tahay iyo khasaaruhu inta uu kala gaarsiisan yahayna ilaa iyo hadda cid ogaan karta ma jirto inaguna ma ogin dawladda Ethiopia naftirkeedu ma ogaan cid geysatay baa aad baad mahadsan tahay waayahay hay'adda Amnesty International iyo dabcan hay'ado kale waaweyn baa ka hadlay arrintan yay ku eedeeyeen maxaa si xoog rasmi soo bandhigeen nurow waxa weeyaan dhibaatada ugu badan horey baan u sheegnay dhibka ugu badan waxa geystay waa ciidanka dalka Eritrea weeyaan ciidanka dalka Eritrea weeyaan waxa la eedeeyay Amnesty International baa eedeysay Human Rights Watch baa eedeysay waxa eedeeyay dawladda Mareykanka waxa eedeysay midowga Yurub waxa eedeeyay hay'adaha gargaarka waxa eedeeyay saxaafadda cid aan eedeynin ma jiro generaalkii ugu sareeyay ciidanka militariga dalka Ethiopia general walba wax balaay wax noocaas la dhahaa baan jeclahay oo ka hadlay
yaa afcad u sheegay uu yidhi waxa dareenkayga iyo damiirkaygu uu ii diiday dadkaygii oo hortayda wixii la doono lagu samaynayo lagu dilayo lagu kufsanayo lagu boobayo hantidoodii oo haddana aadan ka hadli karin taliyihii qaybta waqooyi ee ciidanka militariga dalka Itoobiya ahaa ee isagu ka badbaaday yani weerarkii ay kooxda TPLF ku qaaday saldhiggii uu taliyaha ka ahaa marka wax qarsoon ma aha wax la qarinayo ma aha cid walibana way og tahay kuwa samaynayana way og yihiin maxaan ku yidhaha dowladda Eritreana way og tahay tan Etoobiyana way og tahay laakiin waxa weeye waa lama canaashaan baa caanihii daashay عفوا waayahay amnesty marka ay sidaa u dhawaaqday xasuuqan ay ku eedeysay in Eritrea ay ka dambeysay dhibaatada shacabkaasi Tigreega la gaarsiiyay in Eritrea ay mas'uul ka tahay arrintaasi marka ay soo baxday maxaa jawaabo ka yimid dhanka dowladda Eritrea dowladda Eritrea way ka hadashay wasiirkeeda arrimaha aan idhaahday warfaafinta ayaa daqiiqada ka hor adigu muddo aan qiyaastay adigu wax yar ka hor hadlay aan daqiiqada dhihine waxa uu sheegay inaanay waxba ka jirin waxa la sheegayo oo maxaan ku idhaahdaa ito aan wax dhibaho ay geysteen aysan jirin hawluhuna ay maaragtay ito sida caadi ah u kala socdaan marka uu yani wax lagu qosluba ku tilmaamayba in la hadlo ama la sheego lama la yiraahdo ciidanka Eritrea ayaa waxay dad ku laayeen maxaan ku idhaahdaa ito dalka Ethiopia gaar ahaan deegaanka Tigreega waxa sidoo kale beenisay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Ethiopia oo iyada naftirkeedu warkaasi waxba kama jiraan ku tilmaantay waxaan jeclahay oo kale warkaasi beeninteedii kadib inay soo baxday haddana in guddi ay u dirayso wasaaraddaasi soo baaro oo bal maaragtay baaritaan soo sameeya inay dirayso yaan iyada naftirkeeda yaan filayaa inay jirto oo xogtaasi kulley waa soo gaadhay laakiin ma dhihi karo waa xog rasmi ah laakiin wasaaradda dowladda federaalka ee dalka Ethiopia wasaaraddeeda arrimaha dibadda si cad ayaa cod dheer waxa ay ku sheegtay in Tigreega barwaaqa ay ka jirtay balaayo ayna ka jirin waxaan la leeyahay waa la laayeen ay yihiin dad maxaan ku idhaahdaa ito loo geeyey raashin iyo maxaan ku idhaahdaa ito mashaariic horumarineed ee aanay jirin wax dadaho la dilay Tigreena ay ka socoto horumar iyo dhisme iyo maxaan ku idhaahdaa ito tallaabooyin wanaagsan sidoo kalena Eritrea iyaduna dariiqaas ay martay balse xaqiiqda iyo waaqica dhabta ah ee meesha yaalla iyo sawirrada maaragtay ito la soo gudbinayo iyo muuqaalada lagu maaragtay uu qaaday adeega ama aaladda satellite-ka lagu qaaday ayaa xaqiiqooyin badan banaanka soo dhigaya intaasoo tuulo magaalo oo gebi ahaanba dukum daakum laga dhigay oo noqday goobo aan bini aadan ku noolayn maxaan ku idhaahdaa ito goobo kale oo tiro badan oo dad lagu laayay yani wixii dad baa la wareysanayaa dad baa iyaga oo maxaan ku dhahay u bareeraya inay maaragtay ka warramaan wixii ay arkeen marka xaqiiqooyin badan baa jira qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada labada dal ayaa iyaga naftirkoodu maaragtay xoga ay ka soo xiganayaan hay'adaha maaragtay haatan waxan ka hadlaya marka say dooniba ha noqoto waa la isku dhagan yahay labada dhinacyada kala duwan hadday ahaan lahayd hay'adaha gargaarka kuwa xuquuqul insaanka ee iyagu arrimahan ka hadla iyo labada dowladood ee hadda maaragtay eedaymuhu ay dul saaran yihiin qolo waliba waxa weeye dhankeeda ayay maaragtay waxay kulley rabta ka sheegaysaa waxaa kaloo inuu ogsoonahay madaxweynaha Mareykanka ee cusub inuu la hadlay madaxweynaha dalka Kenya uu kala hadlay xaaladda deegaanka Tigreega iyo mashaqada ka aroosan iyo xasuuqa ka socda iyo in xaaladda la dejiyo oo uu dowladda maaragtay Ethiopia uu uga ergeeyo si gurmad iyo gargaar degdeg ah loo gaarsiiyo ayuu kala hadlay taana waxaad moodaa يعني إن ماركتايتو أي موجينيسو باحد iyo culayska ka jira meeshaasi ay dawladda Ethiopia ay maraktayto iyaduna dhankeeda ay ka wada mashaariicda horumarinta waa maasantahay ugu dambeyn jaamacow madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa la sheegay inuu khadka telefoonka kula soo xiriiray madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta isla markaasina ay ka wada hadleen xaaladda gobolka Tigreega Kenya waxaan ognahay de Ethiopia daris bay la tahay laakiin goobtii dhibaatadu ka dhacday ma aha madaxweynaha Mareykanku muxuu ku doorbiday in uu Kenyatta ka hadlo wixii Tigreeg ka dhacay oo uu la hadli waayay ra'iisul wasaarihii waddankiisa ay mashaqadu ka dhacday
والله تاسي وكل وح الرمجرة أوجود إن تاي بان وقادنا ومارك تايتو إن رئيس الوزراء ضل كيتوبيا سيدا إنه كسونا هي إن أنتي حالته أي عكريد دجالك والسعودي dadaalo badan oo beesha caalamka qaramada midoobay midowga Yurub hay'adaha gargaarka dawladda Mareykanka inkasta oo ay ku garabsiisay xukuumadii xilligaas haddana mar walba cadaadis baa jiray lagu dalbanayay markii hore dagaalka in la joojiyo markii dambana maaragtayto looga hadlayay sidii maaragtayto loo gaarsiin lahaa gurmad dadkii dhibaatadu ay gaadhay ama lagu dul dagaalamay waxay dooniba ha noqotay dawladda Itoobiya gaashaanka ku dhufatay waxayna ku adkeysatay arrimaha inay iyadoo xallisanayso xoog iyo xeelad iyo xaajo waxay doonibana ay ku xallisanayso kadib markii hawshii ay soo dhamaatay ama ay isla gabagabowdayna ra'iisul wasaaraha Itoobiya ilaa iyo hadda jaan iyo cirib meel u dhigay lagama warhayo kamayna arag warbaahinta maxaan ku yiraahdaa waraysi u bixiyay meena arag wixii aan ka maqlahay waa un sawir zoomka laga soo qaaday oo la yiraahdo qofkaasi waa Abiy Ahmed iyo maxaan ku dhahayto wax la mida ama qoraallo lagu baahiyay aaladda Twitterka iyo maaragtay Facebooka weeyaan marka waxaad moodaa ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya in uu maaragtayto isgaabiyay si ku talagal ana uu u qorsheeyay in maaragtayto aanu cidna kala hadlin arrimaha maxaan ku yiraahdaa ka jira dalkiisa noocay dooniba ha noqdaan marka waxaan isleeyahay kullay shakhsigii ugu mudnaa ama dhinaca xiriirka diblomaasiyadda iyo iskaashiga ka dhaxeeya labada dal ee Itoobiya iyo Kenya oo aynu ogsoonahay inuu jiro iskaashi dhinaca amniga ah iyo xiriir maaragtay darisnimo oo qoto dheer oo dhinaca ganacsiga oo ka dhaxeeya awgeed in uu maaragtayto uu doorbiday in uu kala hadlo arrimaha Itoobiya madaxweynaha Kenya marka waa kullay aniga aragtida saas ay ugu muuqataa haddii dhinaca kale laga fiiriyo Itoobiya waxay maaragtay inta badan ku eedeysan tahay xadgudubyo dhinaca xuquuqul insaanka ah iyo maaragtay tacadiyo ama gabood fallo isdaba jooga oo tan iyo maaragtayto jiritaanka Itoobiya la soo factirsaday xilliganna dadkan Tigreega la yiraahday يعني معها ضد سومالي دو كله أما ضد يوغن مسلم كا أو كله معها وضد كريستنا وضد ماركتاي تقول كودا وكويا لو جوبا ماركتاي كم إذا جوبها تاريخ ذا وين ولا ماركتاي ضد كان كريستان كا أما مسيحيين تلي يهدو وها ماركتاي تو إن أي عن كو أهاين دينا ماركتاي دينتا يو دينا التاريخ ذا يو وحياة بدن أو حاجة أد أي ماركتاي إن ضد كان أي maartay dhinaca diinta wadaagaan ay aad maartay ugu tixgeliyaan marka sidii dadkii looma ooyaanka ahaa hadii la dilo iyo hadii aan la dilinba isku mid ka ahaa ma aha dadkani waa dad maartayto waxyaalo badan loogu damqanayo oo maartayto ay dadkan reer galbeedka ay aad maartayto tixgelin u siinayaan marka waxyaalo badan baa marka muujinaya in maartayto dadaal la geliyo waliba lagala hadlo dalalka dariska ah la yiraahdo hawsha hal la galo culays bay muujinaysaa waa mahadsantahay aad iyo aad baad mahadsan tahay jaamac galad ayuu kaasi ahaa daawadayaal halkaa ayaynu ku joojinaynaa barnaamijkan kooban ee aan idinku update garanaynay dhawaaqaasi ka soo yeedhay hay'adaha caalamiga ee ku saabsan xasuuqyada la sheegay inay ka dhaceen gobolka Tigreega ee waqooyiga waddanka Ethiopia isla markaasina dawladda Eritrea iyo ciidamadeeda lagu eedeeyay in ay iyagu geysteen ama ay yihiin kuwa rasmiga ah sida dhabta wax xasuuqay shacabkii Tigreega isla markaasina dawladda Eritrea oo jawaab hadalkaasi ka bixisay ay waxba kama jiraan ku tilmaantay eedaasi loo soo jeediyay arrintaasi ayaynu barnaamijka ka hadlaynay inta aan mar kale kulmi doono waa bahda dhabka hadal nuur iyo jaamacoodin kaga tagaya sidaas iyo fi amaanillah